السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا ورد الدجاج دوفانا لو بحي سجر خطته ويني وخالص فتهذا وكل هذا لما الدجاج كفرت هي من وقوي الصومالي جيبوتي لما تكوي كان وغيرها القف أيا كل أنت سجر تقول كنت على يدك يما دوفانا ذا كويرها هي كسوتي هذا بدأ عرب تجعن كعدمين أيا دفاعين سكت طبعا نقطة دوفان يروحوجا أيا كل فترة قلبت كعدم صدق كل إله يا سجر وحول صفر دفعة وقرية قلبتك عدن أنت أول حيث جسيرة عربت إنجاز كثير وحنا رجينا وصو قرد هذا خطرة وكرر هذا قيبة كم هي من الصومالي جيبوتي دبعتها تربي كار دبريشن وحلا لقوا مقعبي السجر أما وحلا لقوا مقعبي دوفان السجر واحدة من ترول كار دبرمنتي هيدا مسؤولية الكوبادة دوفان الرقية وقيقة بدوين تهندية ويكون شران بد عربات ديجانهان سجر أما دوفان السجر ودوفان حوج له ضبيله حوج بدنية ضوء ضبيشو كلها هنتهاي أما يكون قياسا هاي حوج الدوفان كريلا سداي قبان لابد قيبود متروليكال ديبارتمنت أيو حرمت الدجنينة الدوفان تي أمريكان كا وغيرها هوين أيا أو أي لا هي كل تميل وقعن كعدم أما اليمن بركي يقول جدا دبقبصة دوفان السجر أو جدا سدا لقى سعرتي أسوشيت برايس سجر waxay si wada dabaylo xoogan oo ka dhici doona geeska Afrika gacanka cadmeed hawaba qoto dheer oo marar badan u dhaqaaqaya qaybo kamid ah dhulka Yemen iyo waqooyiga Soomaaliya ama waqooyiga Jamhuuriyadda Somaliland dusha sare ee daruuraha ayaa lagu muujiyay midabada casaanka leh muuqaalka satellite-ka uu duubay casriga roobab dheer oo ku wareegsan bartamaha waa calaamad muujinaysa duufaan kuleyl ah oo caafimaad leh sagar waxa uu helay xoogaa xoog leh sida ku qiyaasta dayax-gacmeedka isagoo ka faa'iideysanaya jawi wanaagsan oo heerkul gaabis ah iyo heerkulka biyaha ilaa 30 darajo Celsius 87.8 degree khatarta ugu weyn ee sagar waxay noqon doontaa roobab culus oo qaybo kamid ah waqooyiga galbeedka Soomaaliya iyo Somaliland waxa suurtagal ah Djibouti inay qaadaan 3 inji ama wax ka badan roobkaasi xarunta gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka Yemen ayaa warisay in daadadku ay keenayso in wasaqda biyaha lagu daro wadooyinka cadan Yemen sida lagu soo xigtay Associated Press kuwani waa isku dheelitiran ballaaran oo jawiga lama deegaanka sida caadiga u helin qoyaan badan iyo meesha dhirta baaxadda leh inuu yahay daadadka tusaale ahaan celceliska cimilada sanadkiiba Djibouti waa 6.4 inch 103.5 millimeter goobjooga yar ayna weydiiyay inuu ka baxo gacanka cadan sababo la xiriira badaha iyo dabaylaha adag la taliyaha gaarka ee qaramada midoobay Arbacadii soo saaray isagoo ku soo boosgareeyay reliefweb.org xafiiska boqortooyada midowga Ingiriiska ayaa ka digay daadad aad u daran fatahaad ee gobolka Geeska Afrika oo dhan horseedi doona luminta nolosha dadka xoolaha burburinta dalagyada hantida iyo kaabayaasha duufaanku wuxuu intaa ku daray roobab culus oo ka daya galbeedka Yemen oo ku xiran inkastoo taasi si toos ah ay duufaansaneen waxay u badan tahay inay kor u qaadaan heerarka caabuqa daacuunka ee toddobaadyada soo socda marka laga soo tago daadadka hay'adaha cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sheegaya in roobab culus sababi karaan xaalado quudin oo wanaagsan oo laga helo dalagyada lama deegaanka sida laga soo xigtay Associated Press kormeerka duufaanada kooylaha ee carabta gacanka cadmeed ayaa qayb muhiim ah istiraatiijiyada sababtoo ah taariikh ahaan waxay ahaayeen asal ahaan ama ay ku dhasheen boogaha dhisit lookaas sida laga soo xigtay Kurt Christman sarkaal sare oo cuntada u qaabilsan UN Food iyo ururka beeraha duufaanta sagar ayaa la rajeynayaa in ay u guurto dhinaca xeebta waqooyi galbeed Somaliland Sabtida waqtiga maxalliga ah xoogaa duufaana kuleyl ayaa si xoog leh u wiiqi kara iyadoo wareegtada ay bilaabayso inay la macaamisho dhulka iyo diyaarsato qalajin hawo cidla ah sida laga soo xigtay xarunta digniinaha wadajirka ee dalka Mareykanka duufaan kuleyleed oo u socda dhinaca galbeedka gacanka cadmeed oo aad u yar ee jirtay iyaduna maadaama ay la socdaan kormeerka dayax-gacmeedka duufaanka kuleylaha 960 ayaa ahayd kaliya laba duufaan oo kale ayaa ku soo guuray galbeedka cadan sida ay sheegayso qoraalka taariikhiga ah ee NOAA duufaan Mega
oo kan labaad ah dib u dhiska gobollada kuleelaha ee kusoo duulaya jasiiradda Socotra ee bariga Soomaaliya ayaa soo degay xeebta Yemen bishii November 2015 sidoo kale warar degdeg ah ayaa sheegaya in magaalada Berbera ay ku dhinteen 2 qof dadka soo rogmada xagga roob aad u weyn oo daayay habeenkii hore ilaa saaka subaxnimadii waa berigii sidoo kale waxay sheegayaan madaxda gobolkaasi ama degmadaasi Berbera in ay ilaa hadda labadaas qof mooyaane oo dhibaato kale ka soo gaareen dadka iyadoo xaafadaha Jamalaya iyo sidoo kale xaafado kale oo ku hareeraysan dhinaca badda Berbera loo raray ama gurmad degdeg ah loo gaarsiiyay xagga iyo iskuulada magaalada Berbera oo looga dhigayo gabood ama xaafadaha ay seexdaan intaasi ay roobku jiraan. Assalaamu calaykum, taasi ku soo gabagabeyna warkaasi degdeg ah